بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ساك هلكم waxaan u fadhinaa sicir bararka arrintiisa waxa weeyaan horta adduunku wuxuu wax ku bartaa kolba tijaabo la sameeyo tijaabadaas markay xumaato dee waxba kolba la hagaajiyaa waxa weeyaan imika markaynu dalkeena eegno abaaraha dhacay dhibaatooyinka dhacay imika 7 bilood la tacaalaynay adduunyooyinka dawladaha waaweyn qaar bay ku adkaan lahayd siday uga bixi lahaayeen hawlaha laakiinse imika waxaanu dareenay in shacbigii reer Soomaaliland waliba dadka ganacsatada lala hadlo ganacsatada waxaan leeyahay wadankan Soomaaliland wadan ictiraaf haysta maaha wuxuu ku halka ku soo gaaray waa dadka isku tashigooga iyo dadku inay ku tashadeen in Soomaaliland jiritaankeega la xoojiyo taasa ganacsatiye cid walba ay ka hawl gashay anigu ilaa 19 markaan intaan halka ka shaqeynayay waxaan ogaa dad badan oo ganacsato oo runtii Soomaaliland inay halka soo gaadho maanta ka shaqeeyay maanta laakiin markay dawladnimadii si yaro kordhaba waxaad moodaa inay wadaniyadii ganacsatadii marka ay leeyihiin markii hore aanu ku sameeynay aanu wax badan aanu wadanka gelinay imika inaanu macaash helaan u baahanahay haddaba maantana waxaanu idinka doonaynaa in ummadda loo turo in loo naxariisto in maanta aynu wadankeena markuu qof walba xisaabtamo uu arko bal doolarka wadankeena soo gala halku inaga soo gala inuu xisaabino waxa aynu sidana kamariyo waxa soo dhan maxaynu inaku leenahay aynu inaku ikhtiraacnay aad gunta soo gaadho inaynan wax soo saar badan lahayn wixii dhagax iyo uu noqday uu dhisme oo aynaan adduunkii kula tartami karin inaynu wax soo saarno inuu wax dhoofino toontiba China la inooga keena in runtii inaynu dib u xisaabtano weeyaan marka imika waxaanu bari dhaweyd lacag banka iyo banka horta u qaabilsan inuu suuqa in la socdo in sicir bararka u jaangooyo lacagta laakiin sidee banki hadaan lacag soo galeen waa af wuxuu ku joojinayaa waa dhibaato haysanaysa imika shirar badan oo nu la galay shirkada baananka ku yaala wadanka haday dahabshiil yihiin iyo haday Telesom yihiin iyo haday Salaama Bank iyo inta ka wadanka wax ka qaban karta markaanu wada hadalay shirar badan galay runtii ay iyaguna dareemeen dhibaatadan inay sii kordho mooyaan lagana faa'iideysanayo wixii soo maray 10 milyan galiya waa lagu jaakiraya 10 milyan baa laga wareegaya wiig buu lacagtii hooseynaysa 10 milyan dibadda loo saaraya dibadna halkii waa lagu soo celinaya marka waxa weyn lacagtii wadanka soo gashayna markaynu dibadii u saarno haddana waxaad ku soo noqonaysaa maalintii dambe inaad lacag kale raadiso tiina ma shaqeynayso imika weydinka arko arigeeni waa la joojiyo doolarkiina soo galay sidii hore uu ka yar yahay marka horta waxaan la hadlayaa ganacsatada waxaan leeyahay ognahay in aanay waxba soo iibsan karin iyagoon doolar haysan inay raashinka ay keenayaan umadu ka iibsanayso ay doolar ku soo iibsanayaan inay wax kasta Soomaaliland keenayaan doolar ku soo iibsanayaan laakiin si haddana marmar baa turaale la sameeyaa imika oo abaarina hayso shuban biyood inagu dhacay xoolihii laynaga joojiyay waxyaalo dhibaatadaas oo dhan dhacday waxay ahaydin raashinka la jabiyo runtii macaashka ay ka macaashayaan uu yaraado tiimay dhicina ummadii masaakiinta ahayd aad bay u dhibaataysan magaalooyinka qaar baan dab la shidan runtii marka ma kuwii miyigee meel ka qaxay baynu u gurmanaa mise kuwii magaalooyinka ku dhibaataysta mise qofkii at least shaqo tagay lahaa uu shaqo taga haddana lacagtiisa soo qaatay aanu waxba u goynin adu calaa xaal maanta ilaa bari lacag xoog leh baa la gelinayaa magaalo laakiin qorshihii hore ka duwan waxa weeyaan lacag aad naga qaadanaysaan oo uruursanaysaan dib u aad u direysaan ma shaqeynayso waxa weeyaan xisaabtan lacagta suuqa la geliyo waxa la doonayaa in lacag umada uu ka jabo oo lacagtii ay jabto oo wax tarto hadii laga fursan waayo oo runtii qorshe waxa ku jira aan lacagtiina inta la uruursado doolarka suuqa uu banku soo gelinayo ay inta sidii caadadii la yiraahdo waa sidoodii aynu ka uruursano haday 100 milyan soo galaan 100 kaba aynu xareysano dibadna aynu halkii ka miisno ma shaqeynayso waxa shaqeyn doontaa in raashinka umada ay dawladdu keento dawladda keenaysa maraakib raashin ay keenaysa
sicir jaban baa dadka laga wakaaladii ganacsiga ummadda la soo celinaya ee raashinka injiya la odhan jiray laga iibin jiray inta yar lagaga iibin jiray laakiinse ma doonayno waxaan u diidanahay ganacsatadeena waddanka nala dhistay inaan dee lagula tartamin aanay dowladdii noqon mid wax walba iyadiina haddana keenaysa oo loo ogolaado inay wixii ka faa'iidaan laakiinse dee markay turi haddii turaale la waayo runtii way iman doontaa taasu waxaan leeyahay way hawl yartahay in 2 markabo raashin imika la keeno la iibiyo bakhaaro dawladdu leedahay dadka lacag yar lagaga iibiyo dabeedna macaash aan la saarin kolba la celiyo la soo baxaleeyo laakiinse dee ganacsatadii waddanka soo dhistay ma doonayno inaynu heerka isla gaadhno waxaanu doonaynaa in la isku turo inaanu annaguna dawladda iyo shirkadaha nala shaqeeya runtii hadday tahay telesom iyo hadday tahay dahabshiil iyo hadday tahay som cable oo maxamed wasiido isna runtii aad iyo aad isku kaaya garab taaga waxaanu doonaynaa inaanu wada shaqaynta ay midho dhasho inay midho dhasho oo aanu la joojiyo oo ay suuqa wax macquula wuxuu doolarku ahaa uu ka kacay dee wadamo badan oo waa la ogyihiin inuu doolarku inuu xoogaysto lacagihii kale ay hoos u laakiin sida idinku dadka la mid manihiin waddan faqiira baynu nahay dad masaakiina baynu nahay dad yar baynu nahay waynu kontarooli karnaa haddaynu isnaano aynu isla garanayno dadka u turno marka runtii aan ku dheeraaday idinkoo raaliga ah baankuna hadli doono waxaan jeclahay in message-kaasu waa mid serious ah waxa weeyaan dadku intaan in ka badan kuma sii jiri karaan sida maanta ama berri baa la gelinayaa suuqa lacagta la wadayaa ilaa intaa dhowrka biloodba waa la wadayaa laakiinse qofka isku dayaya ee isla sidii baad kaga faa'iideysano intaad lacagta xariisataad soo celin doonta haddana halkii yuu ku talagelin waxa weeyaan si fiican baa suuqa dhaqdhaqaaqiisa loola soconayaa maalin walba dad baa la gelinaya waa la eegayaa wixii kordha iyo siduu noqdo dabeedna waxay la tahay inaynu ka fakarno inaynu dadkeena u turno inaan eegin uun waxaad ka macaashaysaa doolarkan ay dawladdiiyo soo gelinayaan macaash ka sii day aanay noqone ay noqoto ummadda in loogu turo waa mahadsantii